السلام عليكم ورحمة الله وبركاته كلنتو وعنا وناكسنا خيارتا قيمها يقدرنتم مدن وميل والبو الدنيا دافع عالم كاد كجوجتان خير كسو دوادا برنامج كنا شخصيات كعان كتوات كان برنامج كنا شخصيات كعان كتوات كان واحد نسع السين يعني وعد فتاح هذا برنامج كنا شخصيات كعان كتوات كان waxaanu ku soo qaadana gabadha ugu daad adduunka ee ku guuleysata abaalmarinta shaada sharafta loo yaqaan Nobel Peace Prize gabadhan yar ayaa waxa lagu magacaabaa Malala Yousaf isla markaasina waxay ka soo jeedaa gabadhan yar dalkaasi Pakistan gabadhan yar ayaa waxay noqotay gabadhii ugu daad adduunka ee ku guuleysata abaalmarinta shaada sharafta loo yaqaan Nobel Peace Prize hadaba gabadhan yar ayaa waxaan si guud ugu eegi doonaa barnaamijkeena qaybta ugu horeysa taariikh nololeedka ay gabadhan yar ay soo martay isla markaasina sidoo kale barnaamijkeena ku eegi doono qodbadii kala duwan ay ka soo jeedisay xarunta qaramada midoobay maalintii ku beegnayd dabaaldega ay loogu dabaaldegayo 16 jirkii ay gabadhan yar ay jirsatay iyo qodbadii kala duwan ay xarunta qaramada midoobay ay ka soo jeedisay isla markaasina ay goobtaasi xarunta qaramada midoobay ku helinayeen xubnaha ugu sarsareeya qaramada midoobay iyo waliba guduf kala duwan oo ka kala socota dunida daafaha caalamka haddaba qaybta ugu horeysa ee barnaamijkan shakhsiyaadka caanka waxaanu ku eegi doonaa taariikhda nololeedka iyo walibana hadafyada kala duwan ee gabadhan yar ay ku aantay shahaadadani abaalmarinta Nobel Peace Prize loo yaqaano ee daawasho wacan Malala Yousaf waxay ku dhalatay tuulada Mingahoor ee dalkaasi Pakistan sanadii 1997 bishii July sanadihii ugu horeeyay ee nolosheedii waxay ka qayb qaadan jirtay dadka dalxiisayaasha ee yimaada deegaanka isla markaasna ay wacyi gelin jirtay gabadhani Malala waxay wax ku soo baratay iskuulka aabaheed aasaasay gabadhan yar ayaa waxa ay ku hanweynayd inay barato cilmiga caafimaadka isla markaasna ay noqoto dhakhtarad buuxda balse waxa uu aabaheed kula talin jiray inay noqoto gabadh dhinaca siyaasadda ama political systemka barata gabadhan ayaa waxay wax ku baran jirtay dugsigaas oo aasaasay aabaheed kabacdi ururka Taliban ayaa waxay damceen inay weeraraan dugsiga oo aasaasay aabaheed ee ku yaala waqooyi galbeed ee dalkaasi Pakistan Malala ayaa hadal ka soo jeedisay Peshawar ee dalkaasi Pakistan bishii Sebtembar sanadii 2008 hadalkii ay soo jeedisay waqtigaasi waxa kamid ahaa sidee ugu dhiirinaadeen inay iga qaataan xuquuqda aasiga ee aan u leeyahay tacliintayda wax qabadyadii ugu horeeyay ee sameeyso waxa kamid ahaa horayntii sanadii 2009 Malala waxay BBC-da u sheegtay inay ku nooshahay cabsi iyadoo ka cabsanaysa nimankan Taliban-ta ah inay u diidaan inay wax barato taas oo ay nimankan ay ku doodayeen inay waxbarashadani ay tahay mid ay reer galbeedka ka dambeeyaan firfircoonida gabadhan yar waxay u horseeday in loo magacaabo gabadha abaalmarinta shahaada sharafta abaalmarinta ee loo yaqaano Nobel Peace Prize 2011 isla sanadkaasi gudaheed waxay dawladda Pakistan ay u aqoonsatay gabadha nabadoonka ee dhalinta dalkaasi Pakistan markii ay 14 jirsatay iyada iyo qoyskeeduba ayaa waxay garwaaqsadeen inay ururkani Taliban ay maleegayaan isku day dil ah oo ay ku bartilmaamsanayaan iyada inkastoo Malala ay argax gashay isla markaasna ay u booqday qoyskeeda inay nimankani wax yeelayaan iyada iyo qoyskeeda waxay garwaaqsadeen inayna waxba yeeli karin ururkani bishii October 2012 iyada ka soo socota iskuul oo sii jeeda gurigooda ayaa nin soo galay baskii ay saarneyd ka bacdina weydiiyay asxaabtii ay wada saarnayeen gaadhiga markaasi ay caruurtii wada eegeen halkii ay fadhideen ka bacdi ninkii ayaa garwaaqsaday iyada ka bacdina xabad ayuu ku furay waxa uu ka toogtay dhanka bidix ee madaxa waxyar kadibna xabadii waxay dhaawacday qorteeda laba gabdhoodna way ku dhaawacmeen Malala waxay gashay marxalad adag iyada oo loo qaaday cisbitaalka militariga ee Peshawar halkaas oo lagu daweeyay burburkii ka soo gaadhay maskaxda ka bacdina barar ayaa ku yimid maskaxdeeda waxa gabadha loo qaaday cisbitaalka boqorada Queen Elizabeth ee caasimadda Birmingham ee dalkaas Ingiriiska Malala ayaa waxay ka soo kabsatay dhaawici dhanka maskaxdeeda ka soo gaadhay waxayna waxbarashadeedii ka sii wadatay dalkaas Ingiriiska waxa lagu marti qaaday gabadhan yar Malala Yousaf xarunta qaramada midoobay isla markaasina maalintaasi ay ku beegnayd maalintii dhalashadeeda oo 16 jirsatay sanadii 2013 iyadoo hadal qoraal ka soo jeedisay qaramada midoobay isla markaasina tiri hadallo odhaha oo meel taabtay mas'uuliyiintii ka soo qayb galay waxayna tiri waxaan u taaganahay tacliinta ay toogteen Taliban-ku October 10 2013 baarlamaanka reer galbeedka waxay u aqoonsanaadeen gabadhan u ololeysa xorriyadda waxbarashada waqtigaasi Malala waxay u magacawneyd oo kaliya bila sharafta abaalmarinta ee nabadda ee Nobel Peace Prize markaasi kuma guuleysanin bila sharafta nabadda ee Nobel Peace Prize balse waxa su'aalo badan laga weydiiyay warbaahinta internetka sida Facebook kadibna
way ka jawaabi jirtay faa'iidada ay u leedahay aqoonta gabdhaha waxayna ka warbixisay taariikhdeeda waxyaabaha ay damacsan tahay inay wax ka beddesho fikradan u diidayay inay gabdhuhu wax bartaan iyo qorshayaha mustaqbalkeeda waxay damacsan tahay inay wax ku soo kordhiso iyadoo su'aalo badan kaga jawaabtay warbaahinta caalamka Oktoobar 2014 waxay ku guuleysatay abaalmarinta Nobel Peace Prize iyadoo ninka isaguna u dooda xuquuqda carruurta Clash Satyarthi oo isagu u dooda xuquuqda carruurta ilaa 17 jirkiisii Malala waxay noqotay gabadhii ugu da'da yareed ee ku guuleysata Nobel Peace Prize bila sharafta abaalmarinta ee nabadda ee Nobel Peace Prize madaxweynaha dalkaasi Pakistan ayaa u hambaliyay markii ay ku guuleysatay Nawaz Sharif oo ku tilmaamay boqoradda reer Pakistan xogayaha qaramada midoobay Mr Ban Ki-moon ayaa isaguna ku tilmaamay geesiyada ahna gabadh aqli leh tusaale u taagay inay aadaan dugsiyada noqotayna macalinka caalamka iyadoo qaramada midoobay ay ku wehelinayeen wakiilka gaarka ee u fadhiya qaramada midoobay ee dhinaca waxbarashada u qaabilsan Mr Gordon Brown waxaana kamid ah hadaladii ay ka soo jeedisay xarunta qaramada midoobay waqtigaasi oo ku beegnayd maalintii dhalashadeeda oo 16 jirtay hadaladii halkaasi ay ka soo jeedisay qaramada midoobay Malala Yusuf waxa kamid ahaa sida tan Bismillahirrahmanirrahim. In the name of God, the most beneficent, the most merciful. Honorable UN Secretary General, Mr. Ban Ki-moon, respected President General Assembly, Vuk Yaramich, Honorable UN Envoy for Global Education, Mr. Gordon Brown, respected elders, and my dear brothers and sisters, Assalamu alaikum. Thank you. Today, it is an honor for me to be speaking again after a long time. Being here with such honorable people is a great moment in my life. And it's an honor for me that today I'm wearing a shawl of Benazir Bhutto Shaheed. I don't know where to begin my speech. I don't know what people would be expecting me to say. But first of all, thank you to God, for whom we all are equal. And thank you to every person who has prayed for my fast recovery and a new life. In the name of God. waxaan ku bilaabayaa magaca Ilaahay ee naxariista guud iyo tan gaaraaneedba leh xogayaha guud ee qaramada midoobay madaxweynaha qaramada midoobay ee wakiilka gaarka ee waxbarashada Mr Gordon Brown mudanayaal iyo marwooyin waxaan idinku salaamayaa salaanta islaamka assalaamu calaykum waraxmatullaahi wabarakaatuh maanta waa maalin sharaf ilaa mar labaad inaan hadlo markii aan waqti badan aan aamusnaa inaan halkan aan ka hadlo oo dad sharaf leh hortooda aan ka hadlo waa mid sharaf weyn ii leh waana mid aniga farxad ii leh anigoo ku labisay shamada lagu sameeyay deegaankayga ma garanayo meel aan ka bilaabo hadalkayga mana garanayo wax ay dadku iga rajeynayaan ee aan idhaahdo ugu horreyntii waxaan u mahadnaqayaa eebo oo mahad iska leh waxaan sidoo kale u mahadnaqayaa qof kasta oo garab istaagay inaan ka soo kabsado oo aan helo nolol cusub ma rumaysan karo sida ay dadku ii tuseen inay ii jecel yihiin waxaan helay kumanaan kun oo kaar oo aan ka helay dhammaan caalamka oo dhan way mahadsan yihiin dhammaantood way mahadsan yihiin dadkii igu dhiirigeliyey dadka aan waxba galabsan inay wax bartaan way mahadsan yihiin dadkayga waaweyn ee i garab joogay inaan heerkan gaadho way mahadsan yihiin dhakhaatiirtii iyo kalkaaliyaashii i garab joogay ilaa laga soo bilaabo dalkayga Pakistan aan ka soo kabsaday dhaawicii waxa kale oo aan u mahadnaqayaa dawladda reer galbeedka oo iyaguna garab istaagay ilaa intii aan ka soo kasbanayay dhaawicii waxaan si buuxda aan u taageerayo xogayaha qaramada midoobay Mr Ban Ki-moon ergeyga gaarka ee u qaabilsan waxbarashada mudane Gordon Brown iyo madaxweynaha qaramada midoobay dhammaantood way mahadsan yihiin hogaamintooda wanaagsan ee dhiirigelinta isla markaasna ku dadaalay inay ficil ahaan kaga qayb qaataan oo ay ku muujiyaan taageerada waxbarashada mudanayaal iyo marwooyin maanta ma ahin maalintaydii balse waa maalintii ay u dhan yihiin gabdhaha iyo ragga oo dhan kuwaasoo kor u qaado codkooda xaqa ah in la maqlo waxaa jira hay'ado badan oo u dooda xuquuqda bini'aadmiga oo dadaal dheer ugu jira oo aan ka hadal xaqooda balse ka hadla sidii ay dadkaas oo dhan ay u heli lahaayeen xaqa ay leeyihiin inay dadku wax bartaan ana helaan cadaalad iyo sinaansho dhan walba
kumanaan kun oo dad raacayba waxaa jira ay dileen nimanka argagixisayaasha anna waxaan ka mid ahay kuwaas waxaan u taaganahay maanta dhammaan gabdhahaas aan la maqlin xuquuqdooda kuwaas oo u dagaaltamaya xaqooda oo ah xaqa ay u leeyihiin inay si cadaalad ah ay u noolaadaan xaqa ay u leeyihiin inay si sinaansho ah loola dhaqmo xaqa ay u leeyihiin fursad sinaansho ah waxbarasho ah xaqa ay u leeyihiin inay helaan waxbarasho mudanayaal iyo marweyn bishii Oktoobar 2012 Taliban ayaa waxay iga toogteen madaxa hore ee dhinaca bidix oo ay dhaawaceen saaxiibadeedii ila saarnaa gaadhiga waxay u maleynayeen inay xabadu iyo aamusinayso balse way ku guuldareysteen waxay u maleynayeen argagixisayaashu inay aamusinayso balse waxaan helay taageero buuxda oo dhammaan aan ka helay adduunka oo dhan taas macnaheedu waa taageeradan maanta aan u joogno ayaa ka mid ah anu waxaan ahay Malaala rajadayda iyo hamigayguba isku mid riyadeeduna waa mid la mid ah sidoo kale mudanayaal iyo marwooyin ani cidna kama soo horjeedo xitaa kuwii isu kaydayay inay dilaan waxaan halkan u joogaa in ka hadlo xaqa aan u leenahay inaan wax baranno oo uu helo cunug kasta waxbarasho waxaan doonayaa cunuga yar iyo gabadha yar ee reer Pakistan ay helaan waxbarasho xitaa nimanka isu kaydayay inay dilaan kamana soo horjeedo iyaga xitaa ma neecbi anigu Talibaanta xitaa haddii aan gacanta aan ku haysto qori oo u taagan yahay hortayda maan toogteen taas waxay ka mid tahay dulqaadka aan ka barta rasuulkeena Muhammad naxariis iyo nabadgelyo korkiisa ahaatee iyo nabi Ciise taas waxa ay naftaydu ii sheegayso inaan dadka jeclaado oo aan si wada nabad ah u noolaano Even if there is a gun in my hand and he stands in front of me, I would not shoot him. This is the compassion that I have learned from Muhammad, the Prophet of Mercy, and Jesus Christ and Lord Buddha. mudanayaal iyo marweyn waxaanu qarwaaqsanaynaa markaan aragno laydhka inuu mugdi jiro waxaanu qarwaaqsanaynaa faa'iidada ay leedahay in la maqlo codkaaga waxa sidoo kale aad qarwaaqsanaysaa faa'iidada ay leeyihiin buugga iyo qalinka markaad aragto qoriga iyo hubka nimanka xadirku way ka baqaan markay arkaan buug iyo qalin waxaa naxdin gelinaya awoodda ay leedahay waxbarashadu waxay sidoo kalena ay ka cabsanayaan marka la maqlo codka dumarka ee waxbaratay taasi waa sababta ay u dilayeen kumanaan kun oo gabdho ah taasi waa ta ay u dileen gabdhaha ka shaqeynaya inay dadka daweeyaan oo ay gaadhsiiyaan dawooyinka lagaga hortago cudurka dabaysha ee boolyada iyo gabdhaha macallimiinta ah waxay ka cabsi qabaan in ay isbeddel ku keenaan waxayna ka cabsi qabaan inaan la sinaano dhinac walba Pakistan waa dal ay ka hana qaaday dimuqraadiyadda diinta islaamkuna waa mid ku salaysan nabad iyo isjeclaansho mudana madaxweyne nabaddu waa laga maarmaan waana furaha kaliya ee baraka markaynu eegno wadamo fara badan gaar ahaan Pakistan iyo Afghanistan oo ah meel ay ku badan yihiin argagixisadu isla markaasna ay u diideen carruur badan inay wax bartaan xaqiiqdu waanu ka daalnay dagaalo dumarkii iyo carruurtii dhibaatooyin badan ay la ildaran yihiin qaar ka mid ah adduunkan aanu ku noolnahay sida Hindiya oo kale carruurta waxaa lagu qasbaa inay hore u guursadaan Nigeria iskuulo badan ayay ka dundumiyeen dadka reer Pakistan nimankan ayaa waxyeeleeyay carruurta yaryarna waxaa lagu qasbaa iyaga oo ay yaryar inay shaqeystaan ka bacdina hore ay u guursadaan faqirtinimada cadaalad darrada jaahilnimada midabta koorka iyo ka qaadashada xuquuqda aas-aaska ay inta badan la kulmaan ragga iyo dumarka maanta waxaan diiradda saarayaa xaqa ay leeyihiin haweenku inay helaan waxbarashada maxaa yeelay waa kuwa ugu badan inay dhibaatooyinka ugu badan ay la kulmaan waxaa jira waqtiyo ay haweenku ay doodi jireen inay helaan xaqooda balse maanta waa annaga inaan raadsanaa xaqayaga maanta waxaan u sheegayaa hogaamiyaasha caalamka inay beddelaan istiraatiijiyadooda siyaasadeed ee ku wajahan dhinacyo kale balse ay u beddelaan nabad iyo wada deganaansho waxaa kale oo aan u sheegaya hogaamiyaasha caalamka dhexdhexaadinta nabadda aan u sheegay inay ilaaliyaan xaqa iyo xuquuqda carruurta iyo haweenka heshiis lagaga soo horjeeda haweenka waa mid aan la aqbali karin waxaan kale oo aan u sheegay in dhammaan dawladaha oo dhan ay hubiyaan inay carruurtu ay heleen waxbarasho xor ah waxaa kale oo aan u sheegay inay dawladuhu ay la dagaalamaan nimanka argagixisayaasha inay ka hor istaagaan carruurta dhimanaysa iyo dhibaatooyinka soo darsa waxaa kale oo aan u sheegay waddamada horumaray inay sii ballaadhiyaan taageerada waxbarashada ee u fidinaya waddamada soo koraya waxaa kale oo aan u sheegayaa bulshada inay muujiyaan dulqaadnimo waxaa kale oo aan u sheegaya in la joojiyo midabta koorka si aan u hubinno xorriyadda iyo sinaanshaha haweenka mana guulaysanayno haddii qaar innaga
inaga mid ahi ay dib u hadhaan waxaa kale oo aan u sheegayaa walaalaha adduunka oo dhan inay ahaadaan geesiyaal ayna muujiyaan dulqaad mudanayaal iyo marooye waxaan doonaynaa inaan helno iskuul iyo waxbarasho qof kasta mustaqbalkiisa waanu sii wadaynaa hamigeena ilaa inta aanu ka gaadhino rajadeenna qofna nama joojin karo waanu ka hadlaynaa xaqayaga waxaanu keenaynaa isbeddel waxaanu aaminsanahay awoodda iyo sii xoojinta adduunkana waanu bedeli karnaa haddii aanu inagu si wada jira aanu u soo wada jeedsanno maxaa yeelay waxaanu si wada jira u qabanaynaa wax kasta inaan u midowno waxbarashada haddii aanu doonayno inaannu gaadhno hadafyadeena waa inaan la nimaadno ka go'naansho mudanayaal iyo marweyn waa inaannu iloobin in dad badan ay la ildaran yihiin faqiirtinimo cadaalad darro iyo jaahilnimo waa inaannu iloobin in carruur fara badan ay ka loox tureen xarumaha waxbarashada waa inaanan iloobin in walaalaheennu dumarka iyo ragguba ay doonayaan mustaqbal fiican sidaasi daraaddeed waa inaannu sugnaa marka uu caalamku la dagaalamayo jaahilnimada faqiirtinimada iyo argagixisada waa inaan ku hadalnaa buugteenna iyo qalinkeenna waana kuwa ugu awoodda badan hal cunug hal macalina hal buug iyo hal qalina ayaa bedeli kara adduunka waxbarashadu waa ta keliya ee noqon kartaa xal waxbarashada waa inaan marka hore aan diiradda saarnaa waad mahadsan tihiin one child one teacher one book and one pen can change the world. Education is the only solution. Education first. Thank you. وهي خيرت قيمها يقدرت مدن waxa intaas aanu ku eeginay taariikh nololeedka gabadhan yar ay soo martay isla markaasina loogu magacaabay abaalmarinta shahaada sharafta ee loo yaqaan Nobel Peace Prize ta balse waqtigaas gabadh yar kumayna guulaysanin balse waa ay u magacaabneyd in la gudoonsin doono abaalmarinta shahaada sharafta ee loo yaqaan Nobel Peace Prize ta bal hadda qaybtan dambe ayaan daawadayaal waxa aanu ku eegaynaa taariikh nololeedkii kala duwan ay soo martay iyo walibana abaalmarintii kala duwaneed ee lagu gudoonsiinayay abaalmarinta shahaada sharafta loo yaqaan Nobel Peace Prize ta gabadhan yar ayaa waxa la gudoonsiiyay abaalmarintii ugu qaalinsanay adduunka ee loo yaqaan abaalmarinta shahaada sharafta haddaba gabadhan yar ayaa waxa goobtaasi si heer sare ah xalfad loogu qabaqaabiyay ay kala soo qayb galeen boqorka iyo boqoradda iyo walibana gudida ugu sarsareysay ee adduunkan ku nool loogu sharfay ee bixiya abaalmarinta shahaada sharafta iyadoo goobtaasi ay ku wehelinayeen gabdho kala duwan oo ka kala socday wadamada Nigeria iyo Iran iyo walibana dalka Syria iyo Iraq iyadoo goob joogay oo ahaayeen gabadhan yar ee ugu daada yar abaalmarinta in la gudoonsiinayay shahaada sharafta waxaana goobtaasi ana ka maqneen waalidiinteeda iyo walaalkeeda walibana gabadhan yar ayaa waxay goobtaasi ay ka soo jeedisay khudbado kala duwan oo taabanaya qofka bini'aadmiga isla markaasina runtii dadkii ka soo qayb galay halkaas ay u riyaaqeen khudbadii qeyrada badneed ay ka soo jeedisay abaalmarinta lagu gudoonsiinayo shahaada sharafta bal aynu ku eegna xafladda ballaaran ee lagu soo dhaweeyay goobtaasi iyo walibana khudbadaha kala duwan ee goobtan ay ka soo jeedisay gabadhan yar ee daawasho wacan waxay ugu dambeyntii gabadhani Malala Yusuf si weyn loogu soo qabaqaabiyay xalfad lagu gudoonsiinayo abaalmarinta Nobel Peace Prize taasoo noqotay gabadhii ugu daada yareed ee caalamka ku guuleysatay bila sharaftani iyadoo noqotayna gabadhii ugu daada yareed dalkaasi Pakistan ee u noqoto tusaale dhammaanba gabdhaha dunida caalamka ku nool maalintan la gudoonsiinayay bila sharafta shahaadada waxaa si weyn uga soo qayb galay dhammaanba gudiyada bixiya abaalmarinta shahaada sharaf ee Nobel Peace Prize loo yaqaano waxaa sidoo kale gabadhan ku wehelinayay qoyskeeda aabaheed iyo hooyadeed iyo walaalaheed oo iyaguna si weyn uga dhex muuqday isla markaasina hadallada ay ku hadlayso ay meel taabteen
bixisa ahayd mid lagu taageerayo isla markaasina lagu garab joogo gabadhan yari dadaalka ballaaran ay u gashay inay wax barato isla markaasina ay wax bartaan gabdhuhu ee ku nool dalkaasi Pakistan gabadhan yar ayaa waxa la aaminsan yahay inay taariikh ka tagtay isla markaasina ay noqotay gabadha labaad ee dalkaasi Pakistan ku guuleysata isku soo wada duuduubo gabadhan yar waxay ahaantiday abaalmarintii ay dadaalka dheer ay u gashay taasoo dhammaanba hogaamiyaasha caalamka ay garab joogsadeen taageero buuxdana ay siiyeen xalfadan oo si heer sare ah loo soo agaasimay oo ay u dhanaayeen dhammaanba gudiyada bixisa shahaada sharafta ee abaalmarinta Nobel Peace Prize wayna ku wehelinayeen dhammaanba hufta u joogta xubnaha gudida ka ah abaalmarinta shahaadadani gabadhan ayaa khudbado dhinaca fara badan taabtay ka soo jeedisay halkaasi sidoo kale khudbadihii ugu dambeeyay ee markii ay ku guuleysatay Nobel Peace Prize ee xalfadii ballaarneyd ee loogu guddoonsiinayay shahaada sharafta nabadda ee Nobel Peace Prize Malala Yusuf oo ay ku wehelinayo Kailash Satyarthi ee u dhashay isaguna waddankaasi Hindiya ayaa waxa khudbadaasi ka soo qayb galay gudida bixisa abaalmarinta shahaada sharafta ee biladda Nobel Peace Prize loo yaqaano taasoo ay goobjoog u ahaayeen xubnaha dunida caalamka ee loo qadariyo isla markaasina gudida bixinaysa abaalmarintani si heer caalamiya bartaasi loogu soo dhaweeyay iyadoo bartaasi loogu soo bandhigay heesooyin iyo welibana dhiirigelinaya gabadhan yar iyo wiilkaniba inay halkaasi ay ka sii wadaan dadaalka ballaaran ay ugu jiraan ee ugu doodayaan inay haweenku wax bartaan iyo carruurta in daryeelo haddaba khudbadda ay ka soo jeedisay maalintii xalfadaasi ee lagu guddoonsiinaya abaalmarinta Nobel Peace Prize waxaa ka mid ahaa hadallada ay gabadhaasi soo jeedisay lecture. Thank you so much. Thank you. Thank you so much. Thank you so much. Bismillahir Rahmanir Rahim. In the name of God, the most merciful, the most beneficent. Your Majesties, Your Royal Highnesses, distinguished members of the Norwegian Nobel Committee, dear sisters and brothers, today is a day of great happiness for me. I'm humbled that the Nobel Committee has selected me for this precious award. Thank you to everyone for your continued support and love. Thank you for the letters and cards that I still receive from all around the world. Your kind and encouraging words strengthens and inspires me. magaceeba ayaan ku bilaawaya naxariista guud iyo tan gaar ahaaneedba leh boqorada gudida abaalmarinta iyo marti sharafta leh mudan yaal iyo marweyn maanta waa maalin aad igu qaaliya aadna waan ugu faraxsanahay in gudida abaalmarinta shahaada sharafta ee nabadda ay ii haneeyeen inay i guddoonsiiyaan waan u mahadnaqayaa qof kasta oo taageero i siiyey iyo jacaylku ii muujiyey waad ku mahadsantihiin warqadaha hambalyada ee ilaa hadda aad ila garab joogtaan ee aan ka helayo dhammaanba adduunka eryada naxariista badnaa ee aad iigu dhiirigelin jirteen waxay horseedeen inaan halkaasi ka sii wado waxaa mahad sidoo kale iska leh qoyskaygii ii muujiyey jacaylka aan kala go'a lahayn aad buu mahadsan yahay aabbahayga aan iga hor istaagin hamigaygii balse igu sii dhiirigeliyey inaan halkaasi ka sii wado waxaa kale oo mahad iska leh hooyadaydii ii muujisay inaan dulqaad sameeyo inaan ka hadlo had iyo jeer runta taasina ay tahay waddada xaqa ah ee diinta islaamku i farayso waxaan sidoo kale u mahadnaqaya dhammaan macallimiintaydii iigu dhiirigeliyey inaan aamino naftayda aanan noqdo geesyadda aad ayaan ugu faraxsanahay xaqiiqdii aad ayaan ugu faraxsanahay inaan noqdo gabadhii ugu horraysay ee reer Pakistan iyo gabadhii ugu da'da yareeda hesha abaalmarinta qaaliga ah ee nabadda ee Nobel Peace Prize intaasi ka bacdi waxaan ahay gabadha u horraysay ee hesha abaalmarintaas isla markaasina u dagaalamaysa xaq ay leeyihiin gabdhuhu waxaan doonayaa in meel walba ay ahaato nabad balse aniga iyo walaalahay waxaan ka shaqayn doonaa nabadda waxaanan kale oo aan aad ugu faraxsanahay inaan wada wadaagno abaalmarintan Kailash Satyarthi oo isagu u doodi jiray xuquuqda carruurta waqti aad u dheer
wakhtigiisii dheeraa ilaa hadda waa uu nool yahay aad ayaan uga hanweynahay inaan si wada jira u wada shaqayn doono ilaa aan ka hubinno caalamka in Hindiya iyo Pakistan ay si wada jira ay u wada shaqayn doonaan ayna gaari doonaan ujeedada ee dhinaca xuquuqda carruurta mudan yaal iyo marweyn waxaa la magacaabi jiray Malala Yusuf taasoo macnaheedu u taagan bashtu magaca Malala waxa uu la macno yahay geesiyad si aan u barano farxadda waxay tahay awowgay ayaa waxa uu had iyo jeer igu yeedhi jiray Malala oo la micno ah qofka adduunka ugu farxadda badan balse maanta aad ayaan u faraxsanahay maadaama aanu wada joogno dad si khaas ah aan u wada jihanahay abaalmarintan ma ahin mid aan anigu iska leeyahay balse waa mid ay iska leeyihiin carruurtaas la iloobay inay wax bartaan waa mid ay sidoo kalena ay iska leeyihiin carruurtaas doonaya inay helaan nabad waana mid ay iska leeyihiin carruurtaas oo dhan in la maqlo codkooda maanta waxaan halkan aan u joogay inaan kor u qaado xaq ay leeyihiin carruurta iyo inaan kor aan u qaadno codkooda maahin waqtigii la dili jiray carruurta waxaa la joogaa waqtigii aan ficil ahaan aan kaga qaadan lahayn sidaas daraaddeed waxay noqonaysaa maalintii ugu dambaysay aan kaga hor tagi lahayn qofka xaqa u lahaa inuu wax barto loo diidayo dad badan ayaa waxay waxyaabo fara badan igu tilmaamaan qaar ayaa waxay idhahaan waa gabadhii ay toogteen taalibaantu qaarna waxay igu tilmaamaan gabadhii u dagaaltami jirtay xaqeeda qaarna waxay igu magacaabaan gabadhii ku guulaysatay abaalmarinta Nobel Peace Prize si kastaba ahaatee walaalka ayaa waxay igu yidhaahdaa gabadhii aan la maqal codkeeda sidaan ogahay anigu waxaan ku qasbanahay inaan arko qof kasta inuu helo xuquuq sinaansho ee dhinaca waxbarashada waxaanan kale oo aan doonaya inay haweenku helaan xuquuq la mid ah ayna helaan nabad meel kasta oo ay ka joogaan adduunka aqoontu waa midda ugu wanaagsan nolosha waana midda laga maarmaanka ah inta aan u leeyahay khibradda ay tahay 17 sano noloshayda markii aan joogay aqalkayga waxaan aad u jeclay inaan wax barto oo aan wax soo saaro waxaana xasuustaa maalmaha ka mid ah aniga iyo saaxiibadahana oo aadnay fasax ayaa waxaanu aad u jeclay inaan ka shaqeyno xisaabta intii aan wax sawiri lahayn xiise ayaan u haynay aqoonta maxaa yeelay waxaan aqoonsanay in mustaqbalkayagu uu ku jiro fasaladaas aan aadayno kilaasadaas aan aadayno waxaan si wada jir aan u akhrisan jirnay si wada jirna aan u wada baran jirnay aadayno jeclaan jiray marka aan ku labisto uniformka iskuulka halkaas ayaanu fadhiisanaynay aniga oo arkaya riyadaydii waxaanu sidoo kale dooni jirnay inay qoyskaygu ay noqdaan kuwa nagu farxa waxaan sidoo kale aanu ka hanweynayn inaan gaadhno hadafyadayada halka ay dadka qaarkood ay u malaynayaan in raggu gaadhi karo heerkaas oo ayna gabdhuhu gaadhi karin balse qadarku isku mid ma ahan markii aan joogay Swat oo ahayd meeshii ay iman jireen dalxiisayaashu ahaydna meel aad u qurux badnayd nasiib darro waxay si degdeg ah isku bedeshay meel ay argagixisadu ay bartilmaamsadaan noqotayna goob argagixisanimo iskuulo badanna way dundumiyeen dumarkiina way argagaxgelsheen dadkiina way dileen riyadaydii quruxda badnaydna waxay isku bedeshay mugdi waxbarashadiina waa la burburiyey dumarkiina waa laga joojiyey inay wax bartaan markii uu caalamku isbedelayna muhiimadayadiina way isbedeshay sidoo kale laba arrimood ayaan hayaa midda koowaad waa in la aamuso in la ina dilo midda labaadna waa inaan hadalnaa kabacdina la ina dilaa waxaan doortay anigu midda labaad waxaanan go'aansaday inaan xaqa ka hadlo kama joogsan karo cadaalad darrada ay samaynayaan argagixisadu ee ay ku samaynayaan innaga horteena ee ay dafirayaan xuquuqdayadii taasoo ay dilayaan dadka aan waxba galabsan gabaadna ka dhiganaya magaca islaamka waxaanu go'aansanaynaa in la maqlo codkayaga aanan u sheegno oo aanu nidhaahno miyaadan baranin inuu ilaahay qur-aankiisa ku sheegay haddii aad disho hal qof waxay la mid tahay adiga oo dilay mujtamaca adduunka oo dhan miyaadan ogeyn in rasuulkeenna suubana naxariis iyo nabadgelyo korkiisa ahaatee yidhi ha dhibaataynin naftaada ama dadka kale miyaadan ogeyn ereyga ku jira qur-aanka kariimka ee iqra taasoo la micnaa akhri denying our rights, ruthlessly killing people and misusing the name of Islam, we decided to raise our voice and tell them, have you not learned that in the Holy Quran Allah says, if you kill one person, it is as if you kill the whole humanity? Do you not know that Muhammad, peace be upon him, the Prophet of mercy, he says, do not harm yourself or others? And do you not know that the very first word of the Holy Quran is the word Iqra, which means read? The terrorists tried to stop us.
and attacked me and my friends who are here today on our school bus. argixisadu waxa ay iskayadayeen inay naga joojiyeen aniga iyo saaxiibadii iskuulkii baskii markii ay ahayd 2012 balse fikradoodii iyo xabadoodiiba mayna guulaysan waanan ka badbaadnay ilaa maalintaas codkayga ilaa maalintaas waa uu sii kordhayaa waan idiin sheegay taariikhdaydii laakiin maahan mid keli igu ah balse waa mid ay ila wadaagaan gabdho badan maantana waxaan u sheegayaa taariikhdoodii waxaa sidoo kale jira gabdho aan walaalo nahay oo ilaa wadaaga taariikhdayda waana kuwa ku kala nool Nigeria, Syria, Pakistan waxaa sidoo kale ila wadaaga walaasha Fuusiya oo ila mid ahayd maalintii balse mayna joojinin dugsigii waxaa kale oo jira gabdho aan iyadu aan halkan ila joogin balse igala qayb qaadan jirtay waqtigii aan ku jirnay ololaha waxbarashada iyo walaashayda hadda ku xiraysan qaxootiga ku ah waddanka Jordan oo iyaduna dhibaato kala kulantay waqtigii ay ku jirtay waxbarashada iyo walaashii Aamino oo ah ka timid waqooyiga Nigeria kuwaas oo ay jidileen ururka Boko Haram una diiday gabdhaha inay wax bartaan oo xitaa u afduubtay gabdhaha waxaa soo dhammaan u sameeyay inay aadin oo kaliya dugsiyada anigu waxaan ahay Malala balse waxaan ahay oo kaliya oo kale Aamina Fuusiya iyo Musun waxaan ahay 66 milyanka ee dumarka ee loo diiday inay wax bartaan maantana waxaan ku hadlayaa magaca 66 milyan ee haweenka ah ee loo diiday inay wax bartaan waqtiyada qaar dadka ayaa i weydiiya maxay gabdhuhu u aadaan dugsiyada maxay faa'iido u leedahay iyaga waxaan u maleynayaa in ay muhiim tahay in la isweydiiyo maxay xaq ugu yeelan waayeen inay aadaan dugsiyada mudan yaale marweyn maanta qayb ka mid ah adduunka waxaa ka jira horumar wanaagsan si kastaba ha ahaatee waxaa jira wadamo fara badan oo milyanaan qof ay u dhimanayaan dagaaladii hore faqirtinimada iyo cadaalad darro ilaa hadda waan aragnaa khilaafaadka inay dad aan waxba galabsanin ay ku naf waayaan noloshoodii carruurtuna ay noqdeen agoomo waxaan aragnaa dad fara badan oo noqday qaxooti Syria iyo Iraq dad badan oo Afrikaan ma haystaan daruuriga koobaad ee waxbarashada maxaa yeelay waxay ku nool yihiin faqirtinimo ilaa hadda waxaan aragnaa gabdho fara badan oo aan haysan xorriyadda ay ku aadaan waxbarashada waqooyiga Nigeria sida uu inoo sheegay Secretary Clash waxaa jira Hindiya Bakistan inay helin carruur badan waxbarashadoodii maxaa yeelay waxaa lagu qasbay inay iyaga oo aan qaan gaadhin shaqaystaan iyo waliba lagu qasbay inay hore u guursadaan gabdho ka mid ah saaxiibada oo ku hanweyneed inay noqoto dhakhtarad oo ay da'deedu tahay 12 jir ayaa waxaa lagu qasbay inay guursato balse waxay hadda haysataa cunug oo ay ku dhashay 14 jirkeedii waxaan ogayn gabadha inay gabadh fiican ay ahayd oo ay ku soo baxaysay dhakhtarad balse mayna helin maxaa yeelay waa gabadh waxaan u hanaynayaa abaalmarintan la isiiyay gabdhahaas aad maqasheen taariikhdoodii inaan ku caawiyo gabdhahaas si ay u helaan waxbarasho tayo leh meel walba oo ay ka joogaan adduunida inaan kor u qaado codkooda marka ugu horeysa waxa uu ka imanaa deeqdani qalbigayga inay ku dhiiranaadaan dugsiga waxaan si khaas ah ugu sii deeqi doonaa dugsigii aan ku soo bartay ee waddankayga gaar ahaan Iswaab tuulada aan ka imid ilaa had ma haystaan dugsi sare waana rajadayda waana waajibaadkayga inaan la imaado isbeddel oo aan dhiso dugsiyo saaxiibada iyo walaalahayba ay aadaan halkaas oo ay helaan aqoon tayo leh waxaan u ballan qaadayaa inay rumeeyaan riyadooda si ay heerkan ay u gaadhaan halkani waa halkii aan ka sii wadi lahaa balse maahin meeshii aan ku joojin lahaa waan sii wadayaa deeqdan ilaa intaan ka arkayo shakhsi kasta inuu helo dugsi mudan yaaliyo marweyn dad aqli badan ayaa keenay isbeddel sidii Mother Luther King iyo Nelson Mandela Mother Teresa iyo Aung San Suu Kyi waxay soo istaageen halkan waxaana la wadaaga aniga iyo Class Tata waanan sii wadaynaa ilaa inta aan ka arkayno isbeddelka ugu dambeeyay rajadayadu ugu weyn ayaa waxay tahay tani waxay noqonaysaa waqtigii ugu dambeysay inay ahaato inaan la dagaalanno aqoon la'aanta taas oo xalin doonta mar iyo in badanba waxaanu soo aragnay wadamooyin fara badan balse hadda waa markii aan ka qaadan lahayn go'aan maahin waqtigii loo sheegi lahaa in hal hogaamiye oo loo sheega faa'iido ay leedahay waxbarashadu balse waa in loo sheegay in ay tahay markii go'aan laga gaari lahaa dhama adduunyada inteeda kale waxaan weydiisanayaa in hogaamiyaasha caalamka ay midoobayaan in ay muhiimadda koowaad ay ka dhigtaan waxbarashada 15 sano ka hor waxay hogaamiyaasha caalamka ay aasaaseen milyan gool intaasi ka soo dambeysay waxaan aragnay isbeddello badan in carruurta dugsiyada looxtuurtay jiray ay yaraadeen si kastaba ahaatee waxa uu caalamku diradda saaray dugsiyada dhexe taas oo aan isbeddel una gaadhin dunida inteeda kale
2015 dhammaan hogaamiyaasha caalamka oo dhan ayaa ku kulmay xarunta qaramada midoobay si ay uga wada hadlaan sanadada fooda inagu soo haya caalamku ma aqbali karo in la gaaray aas-aaska waxbarashada dhammaan adduunka oo dhan halka ay hogaamiyaasha horumaray ay aqbalayaan inay heleen aqoonta aas-aaska ah ay ku filan tahay marka ay caruurtooda ay ka shaqaynayaan xisaabaadka aljabraaga cilmiga sayniska fiisigiska iyo wixii lamida waa inay hogaamiyaashu ay u arkaan in ay caruurta kale ay helaan waxbarashaysan oo ah ta koobaad iyo ta labaad cun kasta qaar ayaa odhanaya tani waa mid practical aad ayay qaali u tahay waana mid wax yeelo leh balse markii ay adduunku u fikiri lahaayeen mid arrinkaas ka weyn mudanayaal iyo marwooyin dadka lagu magacaabo hogaamiyaasha caalamku way fahansan yihiin balse caruurta aniga oo kale ma fahansanin are so powerful in creating wars but are so weak in bringing peace. Why is it? Why is it that giving guns is so easy, but giving books is so hard? Why is it? Why is it that making tanks is so easy, but building schools is so hard? We are living in the modern age, and we believe that nothing is impossible. maxay u fududaatay in xabaddu ay tahay mid aad u fudud balse siinta buugta ay aad u adkaatay maxaa keen in taangi uu noqdo mid aad u fudud balse geynta dugsiyada caruurta uu noqotay mid aad u adag waxaanu ku noolnahay caalam horumaray waxaanu rumaysanahay in ay wax walba ay macquul yihiin 25 sano ee soo socda waa inaan xaqiijinaa in qof kasta uu helo xuquuq isku mid ah mudanayaal iyo marwooyin aniga iyo caruurta aanu isku mid ka nahay waa inaan shaqo la nimaadnaa inaan sugno maahin siyaasiyiinta iyo hogaamiyaasha waxaan u baahannahay inaan wax ku soo kordhino aniga idinka iyo innagaba waana mas-uuliyadda innaga saaran waa inaan noqonaa dhalintii ugu horraysay ee go'aansatay inaan noqono kuwii ugu dambeeyey ee diiday inay arkaan kilaaso maran iyo carruur la dayactiray waa inay noqotaa markii ugu dambaysay ee carruurta loo diido waxbarashada waa inay noqotaa markii ugu dambaysay ee wiil iyo gabadhba in lagu qasbo inay horey u guursadaan waa inay noqotaa markii ugu dambaysay ee carruurtu ay lumiyeen noloshooda adduunkan aanu ku noolnahay waa inay noqotaa markii ugu dambaysay ee carruurtu ay looxtuuraan waa inaan arrinkaas aanu ka dhammaynaa waa inaan hadda bilownaa si wada jir ah maanta halkan waa inaan bilownaa waad mahadsan tihiin Let this be the last time that a girl is forced into early child marriage. Let this be the last time that a child loses life in war. Let this be the last time that we see a child out of school. Let this end with us. Let's begin this ending together, today, right here, right now. Let's begin this ending now. Thank you so much. Thank you. وهي خير تقييم هي قدرنتم مدن waxa inta sino weedal barnaamijkina shakhsiyaadka caanka dubaadkan hadaba barnaamijkina shakhsiyaadka caanka dubaadkan ayaa waxa dhinaca kamarada igala qayb qaata waa saaxiibaday Axmed Mahdi Muuse iyo Wilibna Asad Yaasiin sidoo kale waxa ku wehelinayay dhinaca kamarada igala qayb qaata waa saaxiibkii Cabdisalaam Maxamed waxa barnaamijkan alaaba habeeya waa saaxiibkii Cabdi Ciise waxa barnaamijkina shakhsiyaadka caanka dubaadkan isukii soo dabar isla markaa dindii soo diyaariyay anigoo Cabdi Fataaxada barnaamijkan mid lamada ku gulmi doona musbuucii fooda nagu soo yaado ee baha wada loo ogolaado waa aniga dhammaan asxaabta kala qayb qaato idin la nabadaya assalaamu calaykum waraxmatullaahi wabarakaatuh